wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ninka lagu magacaabo Javad Zarif ayaa sheegay in dawladdiisu aanay xulin albaabka wada hadalka ay kula furayso madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump hase yeeshee waxa intaasi ku dartay waa dawladda Iran inaanaysan ka dhaadhacsanayn in ninkaasi waa madaxweyne Trump uu yahay nin wada hadal la geli karo oo la isku halayn karo waa sida ay hadalka u dhigeen Mr. Zarif ayaa waxa uu ka hadlayay magaalada New York kadib markii ay dawladda waddanka Iran ka heshay taageero dalalka kale kuwaasoo xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loo badbaadiyo heshiiskii nukliyeerka ee waddanka Iran lala galay 2015 walow uu sii kordhayo cadaadiska uu heshiiskaasi ku hayo Mareykanka kaasoo isaga baxayba bilowgii sanadkan Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu sheegay in wax kasta ay suurtagal yihiin isla markaana aanay albaabada ka xidhan madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump balse waxa uu intaasi ku daray in xilligan la joogo aanay Iran aqbali rabin in Trump ay la yeelato kulankaas oo ka mid ah kii uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un Mr. Javad Zarif ayaa waxa uu sheegay in kulanka noocaas ah uu fursad igu sawir ah u noqon doono madaxweyne Trump isla markaana heshiiska ka soo baxa aanu noqon doonin mid la mid ah kii 2015 ee uu Trump isaga baxay dawladda waddanka Iran ayaa rajaynaysa in quwadaha kale ee heshiiska qaybta ka ah ay ku sii jiri doonaan midowga Yurubna waxa uu samaynayaa hanaan ay shirkadihiisa uga ganacsan karaan dalkaasi iyagoo aan isticmaalaynin lacagta dollarka wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda waddanka Iran ayaa sheegay in kastoo dawladda Iran ay xaalad adag soo wajahday aysan haddana xilligan diyaar u ahayn inay ka baxdo heshiiskeeda nukliyeerka waddanka Liibiya waxa mar kale dib loo furay garoonkii diyaaradaha ee kaliya ee ka shaqeynayay caasimadda waddankaasi ee Tripoli kadib burburkii ka soo gaaray dagaaladii waddankaasi ka dhacayay sanadihii dambe duulimaadyadii garoonka ayaa dib u bilaabmay sida ay sheegeen mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee xagga duulimaadyada Matiga Airport oo hore u ahaa fadhiisin ay diyaaradaha duulimaadka ganacsigu isticmaali jireen ayaa dib loo furay iyadoo garoon kale oo weyn ay burburiyeen maleeshiyooyinka dagaalada ka waday waddankaasi tan iyo 2014 isu socodka duulimaadyada ayaa si caadi ah u socda iminka sida lagu sheegay war qoraala madaarka lagu magacaabo Matiga waxa uu dhacaa dhulka xeebta waqooyi galbeed ee waddankaasi Liibiya oo ah 8 kiiloomitir marka laga yimaado meesha lagu magacaabo Martyrs Square ee caasimadda dalkaasi Tripoli kooxo hubaysan ayaa hore ugu dagaalamay magaalada iyo meelo ka baxsan oo shirkadda saliidda soo saarta ee OPEC ay ka howlgali jirtay oo ku yaala deegaanadaasi tan iyo markii la riday dawladdii Muammar al-Qadaafi 2011 kooxda FBI-da ah ee baaritaanka ku haya eedeymaha tacadiyada galmada ah ee loo soo jeediyay xaakimka uu madaxweyne Trump u soo magacaabay maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka ninka lagu magacaabo Brett Kavanaugh ayaan wax waraysi ah la yeelanin haweeneyda eedeymaha ugu culus soo jeedisay sida uu qareenkeedu sheegay qareenka lagu magacaabo Christine Blasey Ford oo warqad u diray hay'adda dambi baarista u qaabilsan dawladda waddankaasi Mareykanka ee lagu magacaabo FBI ayaa sheegay in ay tahay wax aan meeshaba la soo dhigan karin in ay hay'addu baaritaan samayso iyadoo aan wax waraysi ah la yeelanin Christine ninka lagu magacaabo Christine ayaa guddi aqalka Senate-ka ka socda ka hor qirtay in Mr. Kavanaugh uu tacaddi u geystay gabadhaasi markii ay da'yarta ahayd balse Kavanaugh ayaa si weyn u diiday eedeymahaas waraaq loo diray hay'adda FBI-da maalintii Talaadadii oo lagu aadiyay madaxa hay'adda dambi baarista ee FBI-da ninka lagu magacaabo Christopher Wray iyo waliba Dana Bounty oo ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee hay'adda ayuu qareenka Ford ku xusay in 5 maalmood laga soo wareegay markii FBI ay bilowday baaritaanka cusub ee dib u eegidda waxa ay sheegeen in hay'addu aysan uga soo jawaabin markii ay u soo bandhigeen in waraysi ay la yeeshaan Mr. Ford iyo waliba emailo iyo waraaqo ay u arkeen
in ay ka caawin karaan goobjoogayaal ay u badan tahay inay gacan ka siin karaan baaritaanada ay hay'adaasi FBI-du wado. mudaharaado lagaga soo horjeedo arrinkaasi ayaa horey uga dhacay waddankaasi Maraykanka. سعيد أحمد تمريسي ورركا تلفزيون كعالمي جاه ستار.